السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhow daawade taxanihiinii maqluuqii ku jiro dukaanka qaybtiisii 8aad. waxaynu qaybtii hore joognay in mariig loogu sheegay si taxadir ah wax kasta oo ku saabsan jaraa'idka iyo lacagta la helay. qaybtanna waxay ku bilaabanaysaa ma u malaynayo in uu fahmay markii ugu horeysay, sidaasi daraaddeed waxaan ugu celiyey mar labaad. wuxuu ahaa mid aad u yaaban daqiiqad kadib wuu istaagay, wuxuuna u cararay qolkiisa si degdeg ah. cod qariib ah ayaa ka soo baxayay sida qosol. cutubka 5aad, martidii muhiimka ahayd. ma jecleen mariig inuu keligiisa noolaado sida nin ku nool guri cad. wuxuu aqrinayay buugaagtiisa wuuna ila sheekaysanayay, laakiin waxaan jeclaa in uu la sheekaysto dad badan, sida in uu la sheekaysto gabdhaha. mariig wuxuu aqrinayay wax ku saabsan gabdhaha, balse inta badan lama hadlo dumarka. wuxuu maalin kasta la kulmaa kalkaalisooyin, laakiin inta badan aad ma ula hadlo. asiga had iyo jeer waa makhluuq ee ma ahan nin. hal maalin mid ka mid ah saaxiibaday, gabar yar oo qurux badan, ayaa imaaday isbitaalka. waxaana ugu sheekeeyey wax badan oo ku saabsan mariig, waxaana u waday qolkiisa. waxay furtay qolkii wayna u dhoola caddaysay. subax wanaagsan mudane mariig, waxayna ruuxday gacantiisa. subax wanaagsan mudane mariig, iyadoo u dhoola caddaynaysa kadib ayay ruuxday gacantiisa. mariig wuxuu fiiriyey daqiiqad asigoo afkiisa furan yahay, wuxuuna u fadhiistay si degdeg ah asigoo gacmaha madaxa saartay, wuuna ooyey. qiyaastii wuxuu ooynayay 5 daqiiqo. saaxiibadday waxay ag fadhiisatay mariig, waxayna qabatay gacantiisa. wax ma aysan dhihin, wayna u dhoola caddaysay, waxayna ruuxday gacantiisa mar labaad. digtoore, wuxuu idhahyay haweenkaas, naagtaas cajiib ayay ahayd. hooyaday ayaa ii dhoola caddaysay mar sannado badan ka hor, laakiin ma jirin naag kale oo ii dhoola caddaysa. laakiin naagtan waa ii dhoola caddaysay sidoo kale, waxayna ruuxday gacantayda. naag qurux badan ayaa ii dhoola caddaysay, waxayna ruuxday gacantayda. gabartii dhallinyarada ahayd waxay soo laabatay isbuucii xiga, waxayna mariig la sheekaysanaysay saacad barkeed. isbuucii xigay ayay imaaday iyadoo ay la socdaan asxaabteeda, waxayna siinayeen xoogaa buugaag ah iyagoo la sheekaysanaya. maalintaasna waxay la cabeen shaah. asiga cajiib ayay la ahayd, markii ugu horeysay noloshiisa ayuu yeeshay saaxiib. wuxuu ahaa nin aad u faraxsan, wuxuuna fadhiistay qolkiisa asigoo buugaag akhrinayo, mana ka hadlin in badan inuu ku noolaado guri cad. dadkii waxay bilaabeen inay sheekada mariig ka akhriyaan jaraa'idka, sidaas daraaddeed wuxuu helayay booqadayaal badan. qof walba wuxuu doonayay inuu arko. dad badan oo muhiim ah ayaa booqan jiray, wayna u dhoola caddayn jireen iyagoo gacantiisa ruxaya. markaas ayayna siinayeen xoogaa buugaag ah. xalqadeenni maanta intaas ayay ku eg tahay. intaynu xalqad midaan la mid ah ku kulmi doonno waxaynu kaga tegnaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.